ميا أدوك إلهي فرماجة وقربه حوا فرماجي تراني فرماجة مرب إلهي ومسؤولي وحنا حيز متقانا قف التاجز إيه ما أهان ما دام قلبينا إلى لماي ومتقانا أو حرب أسكت هاي حرب هذينا رالي كلين إن يسيو يقرأ النقطة بقول كيو بقول قف أقل من ماجر وميا si fool xun oo naxdin leh ayaa loogu bahdilay gabadhan oo caan ka ah TikTok iyo YouTube waxaana ku dhacay wax ay ka qaaday qalbi jab iyo oohin kadib markii ay cayday farmaajo waxaana lagu khasbay in ay raali geliso oo ay ammaanto farmaajo oo ay cayday haddaba maxaa sabab u ah in gabadhan ay raali gelin ka bixiso caydii farmaajo waliba iyadoo ooyeysa oo ilmadu ay ka qubanayso qaybaha dambe ee muuqaalkan ayaad ku arkaysaan waxa gabadhan ku dhacay iyo waxa ay la ilmeysay oo ilmada ka keenay ee muuqaalkan like far badan saara si uu gaaro meel fog waa tan ee ila daawo muuqaalka laga soo duubay gabadhan oo ilmada ceeshan weyday subxaanallah ميا أدوك إلهي فرماجة وقربه حوا فرماجي تراني فرماجة مرب إلهي ومسؤولي أفرتان سنة شيء وسين إتصو مانين وهدي نيجا مانين no way no more فرماجة no more دم بحتها مردم never ever حتها السلام عليكم وعليكم السلام دمانتين رير تيك توك نحرب أنا كهالله موضوع oo labadan bari mataqaana aan aad liyo karib hashooyo haba uga badnaatay snapchat-ka maalinta oo madaxweynaha la doortay waxa jirto video aan taas ka soo duubano waxa rab iskaga hadlahay sax waay runta xamaasada ay ka badatay waxa rabana iskaga hadlo waxa rabana iska sheegay aadan ugu qaldanahay midaas maan ka fiirsanin asxaabteeda waxa rabaa inaan idho iga raali noqda xalayna sidoo kale live aan ku jira ka hadla ka dhahay raali noqda maadaama taas ay ku filay mid kale ay soo duubay Soomaali horta waa iska hadla sax waay waxa raba iska sheegay xamaasadan iga keentay igama ahan wax ma haysto mataqaana qof taagiz igama ahan maadaama qalbiyadiina ay ilaalin waaye oo mataqaana waxa raba iska dhahay xarab hadina raali gelin in ay siiyo igaraal noqdo boqolkiiba boqol qof aqal min ma jiro waa maya arab iyo ilkay ka isku dhaw isgaarayaan marka Suuriyan dhahaya aab farmaajo sidoo kale inta waa jeclahay mataqaana 4 sano kadib insha Allah soo laaban doonaa asxaabteeda idinka igaraal noqdo boqolkiiba boqol dadka iyo xumaaday jeclaan waan cafiyeedi kan gabadhiina oo qaldantaa heeska cafiya sababta gabadhan dagaalka loogu qaaday waa in ay caysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo way jiraan dhalinyaro badan oo si dabiici ah u taageersan Farmaajo kuwaas oo mar walba dacaayad iyo weerar ku qaada qofkii Farmaajo caaya waxaana halkaas laga ogaan karaa sida ay u jiraan dhalinyaro iyo shacab badan oo si xooggan u ilaashanaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ku tilmaameen inuu yahay madaxweynaha shacabka daawada sidee u aragtaa dareenka dhalinyarada iyo jabka ku dhacay gabadhan